wafdigan uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Siid mudane Maxamed Xasan Ciro waxaa qayb ka ahaa xubno kale oo ka tirsan guddiga garoonka diyaaradaha ee Shaati Gaduud waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Abduqaadir Yuusuf Baafo iyo xubno kale oo ka tirsan isla guddiga intaasi kadib madaxda ayaa qaybta VAB-da isku xog wareystay waxaana ay ka wada sheekaysteen meesha ay marayso hawsha qabanqaabada iyo qabashada doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Abduqaadir Yuusuf Baafo ayaa si aad ugu warbixiyay halka ay marayaan howlaha qabanqaabada waxaana sidoo kale uu sheegay in guddiga ay ka wadaan howlo aad u fara badan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed kuwaas oo ay ugu horeeyaan wada tashiyo ay la sameynayaan qaybaha kala duwan ee bulshada maanta ay taariikhdu tahay 26 Oktoobar maalin talaada waxaa kormeer shaqo noogu yimid gudoomiyaha fiidka iyo amniga Maxamed Aadan wafdigaas ayaan soo dhaweynay waxaan ku soo dhaweynay airportka Baydhabo marka 2 maalmood 3 maalmood ayay nala joogi doonaan ayagoo kormeer u gali doona sida aan hawsha u wadno meelihii diyaarka ah maadaama waqtigii maaragtay doorashada ay soo dhowdahay sida ugu dhaqsiya badan laga yaabo inay bilowdo doorashada gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee Siid Maxamed Xasan Ciro ayaa sheegay in ujeedada magaalada Baydhabo ay u soo gaareen ay tahay wada tashi iyo sidii dhidibada looga aasi lahaa hanaanka doorashada golaha shacabka sidii ay ugu bilaabmin lahayd si rasmi ah gudoomiye Yuusuf iyo axsaabta kale gudiyada doorashooyinka Maxamed Aadan Yuusuf iyo sidoo Maxamed Cabdulle sidoo kale dhamaan bulshada reer Koonfur Galbeed madax iyo shacab waa idin salaamaya inta aad bay farxad iigu tahay inaan imaado magaalada Baydhabo ujeedada socodkeenu waxay qayb ka tahay in aan dhidibada u aasno bal hanaankii ay doorashada golaha shacabku ay si rasmi ah ugu bilaaban lahayd anagoo rajaynayna wixii farsamo ah inaan isla dhamayno maalmahan kadibna ay si toos ah doorashadii inoogu bilaabato waan dareemayaa dadka Soomaaliyeed kale warweyn bay naga sugayaan doorasho ay naga sugayaan rajadu way wanaagsan tahay diyaar garowguna waa fiican yahay hadda xaaladdu meel wanaagsan bay maraysaa inagoo isku wada duuban ayaan doorasho dhaqso u galeynaa haddii alla ka dhigo Siraaj Shaysa warbaahinta qaranka Soomaaliya